بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ملت joogtaan ba ilaahay subxaana wa tacaala idinku ammaanyeelo ciddii dhibandhibka allah ka qaado, ciddii dan le allah u oofiyo, inta baahan allah deeqo, inta bugta allah bogsiyo, intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariista, annagana allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala haynoo badbaadiyo. Waxaan ka hadlayaa maanta saddex qodob. Qodobka koowaad, xasan sheekh iyo galmudug xogihii ugu dambeeyey. labo, geedanaar axmed dhuxulayste iyo gedo waxaa kala qabsaday. qodobka saddexaad waa talo aan u jeedinayo maxkamadda puntland iyo xogtii ugu dambeysay ee siciid dani iyo isku daygiisii boobka xukunka. xasan sheekh maxamuud wuxuu tegay meesha la yihahdo galmudug. wuxuu la kulmay wixii uu filaya waxaan ahayn, wixii loo sheegay wax ka duwan. wuxuu u tegay qabaa'il aan diyaar u ahayn in beenbeen lagu howlgeliyo, dadkooda lagu laayo. wuxuu u tegay reer hebel oo leh reer hebel annaga meeshayada dagaal kama geli karaan, macawisley ii keenuu yidhi. qolo walba waxay soo saartay miiska intaas oo condition oo laga rabo inuu fuliyo. qaar waxay yidhahdeen 700 oo ciidan aan keenaynaa, waxaan laakiin haysanaa intaasoo qori oo u baahan repair iyaga iyo baabuurtoodii. qaar waxay yidhahdeen waxaan u baahannahay logistics, lacag iyo hub iyo rasaas, intaba waa u baahannahay, laakiin ciidan kun baan keenaynaa. kuwo kale waxay reer hebel aagga iyaga ma imaan karaan, kamana diriiri karaan. hadday dabcaan inay ka xoreeyaan al-shabaab meesha annagu aan degannahayn, annagaa iyaga la dirirayno, al-shabaabka ku biirayno. waa musiibo ummadda soomaalida ay dhexda kaga jirto. war cadow common ah baynu leenahay, cadow ina ka wada dhexeeyo, kulligeen colayna laah. inuu marka nin al-shabaabi magaaladaada haysto baad waxaa ka dooranaysaa nin walaalkaaya oo raba inuu ku dhinto, inuu isaga kaa dhiciyo oo kaa xoreeyo u socda inaadan ogolayn. waa nasiib darrada qabyaaladu ay leedahay. weliba dad meel kale jira maaha, waa dad isku hal reer ah. musiibo wey. madaxweynaha ciladaas waxaa ku keenay shaki laga qabo daacadnimada madaxweynuhu dagaalkan uu u galay. daacadnimada ah in magaranaysaa uu runtii rabo inuu al-shabaab la diriro iyo inuu ujeedo kale leeyahay oo aan haba yaraatee la kala saari karin. hiiraan sidii uu ula dhaqmay iyo reer hiiraan cid waliba waa ku cibro qaadanaysaa. reer hiiraan waxay marayaan qaarkood dadkoodii madaxda ahaa inay heshiis cusub la geliyaan al-shabaab because they don't have no option. survival, inay badbaadaan oo dadkooda la daayo bay u baahan yihiin, oo dadkooda badbaado. halkaasay maraysaa. madaxweynuhu kuma talagelin uu run ahaan ula diriro al-shabaab. marka shakigaas isaga ah yaa wuxuu keenay wixii loo akhriyey oo mahad salaadii ay ku akhriyeen oo al-shabaab ku saabsanaa wax ka duwan inuu la kulmo markii uu yimi galmudug. la dagaalanka al-shabaabku waa arrin noobal ah. ummadda soomaaliyeed guusha ugu weyn oo ay gaari karto waa inay cudurkaas al-shabaab la yidhaahdo oo musiibada ah, oo cadowga koowaada, oo colka ah, oo xasadka ah, oo aan naxariista lahayn, ee dhiigmiiratada ah, naf iyo maalba dadka baaba'shay, inay ka takhalusaan. waxay rabtaa marka daacadnimo iyo run in loo sheego oo run lagu hogaamiyo. madaxweynuhu finally wuxuu go-aansaday ciidamadii yaraa oo ka haray reer eritrea ee xamar joogay oo 700 ilaa 800 inta udhexaysa ah inuu soo qaado. hubkii baa loo qeybiyey. waxaa loo sheegay inay iyagii laftigooda xabad la dhiceen magaaladii, rasaas fureen oo dagaal caraysan yihiin. maxaa yeelay waxaa lagu wadaa meeshii hadda ka hor lagu baaba'shay ciidamadii gorgor iyo macawisleydii ruunirgood baa la geynayaa baa ciidankaasi waa ciidanka yar oo ka haray ciidamada sida fiican u tababaran ee eritrea ay u tababartay ummadda soomaaliyeed si ay ugu abaalguddo abaalkii loo galay xilligii xornimada ay u dagaalamayeen. arrintaas runtii waa arrin
naxdinteeda leh nimankaasi waa ciidan fiican horta saa hadday isugu duubnaadaan oo aan hadda logistica kama horeyso intelligence kama horeyso iyagoo la iska wadaa meel la geynayaa al-shabaabkiibaa waxay kusoo qaadayaan weerar aysan filayn iyagoo aan diyaar ahayn loo sheegi maayo xataa al-shabaabka kusoo socda waa laga qarinaya marka arrintan ciribtirka ciidamada ah oo ka soo baxay dagaalkii wejigiisii koowaad qof walba oo askariya waa ka baqsan yahay walwal iyo shaki baa ku jira there's no moral niyad ma haya askarigii uu ku dagaalamo qof baan niyad hayn marka oo meesha khasab lagu keenayo hadda xabada ka ridaya xamar oo meesha layga daayo laygu laynayo dee wuxuu gaari karo ma garanayno laakiin al-shabaab in lala diriro dalka laga xoreeyo waa arrin noobal ah ninkii dagaalkooda ku dhintaana khayru qatla man qataluuhu qofka ugu sharafta badani waa qofka iyagu dilaan qofka iyaga dilaana waa saas oo kale waa qofka ugu sharafta badan marka nimankaasi waa col iyo cadow in la iska dhacshana very important laakiin madaxweynuhu ha sifeeyo villa Soomaaliya ha sifeeyo mahad salaado al-shabaab iyo taliyaha ciidanka oo lagu eedeeyay al-shabaab la shaqeysto laguma aamini karo ciidan cidii u dhawaataana waa dhimanaysaa ilaa iyo hadeer intaan ka aragnay sanadka iyo barka madaxweynuhu madaxda ahaana waa tirtirka iyo baabiinta ciidamadii la soo dhisay 5 sano isaga ka horeysay qodobka intaasan ka waranaya qodobka labaad ninkii geedanaar ahaa lacag kasta bixi horgal la samaysay gudoomiyihii gobolka ninkii ahaa buula gare ninkii ahaa xasan garbahaarey ninkii joogo xasan ahaa maxaan ku idhaahdaa wasiir ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha ninka la yiraahdo ogle cabdi ogle iyo dhuumaal oo wasiirka amniga ah isku sawir kulligood dhawaaqe luuq iyo doolow iyo baar dheere iyo beled xaawo maamuladii joogay soo dhaweeyo aqbale lacag bay ka gurteen horgallaa isku sawiray xaggay aan keenayna xaggaan ka dhacayna dadku waxaysan rabin ma shaqaynayaan waa taagan yihiin weli maxamuud sayid iyo ciddii lasoo diray oo la socotay wafdiga ahayd ma soo geli karaan garbahaare ninkii la oran jiray oo shimbir oo kusoo dhuuntay oo soo tahriibay sidiisii haddaysan usoo tahriibin al-shabaabku soo gudbin dee meelay maraan ma leh garbahaareyna hadda waaba go'doon oo waxaa ku wareegsan al-shabaab marka su-aasha aan rabo inaan dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba aan weydiiyo waxay tahay al-shabaab ma axmed madoobe u shaqeeyaan inay dadkaanu wada shaqaystaan foreign stooges ay yihiin kulligood ajnabiga u shaqeeyaan sida hadda ka dhacaysa meesha la yiraahdo Niger markii ay iska saartay Faransiiska oo ay inqilaab ku qabteen kii jaajuuska u ahaa oo iyaga u dhagan uglaayay madaxweynaha xoogga lagu saaray kii ka horeeyana la tuuray dadkii ay kaceen oo ay taageereen ciidankoodii oo ciidanku la wareegay oo inqilaabay prime minister la magacaabay waxaa dhawaaqay qolo la yiraahdo ECOWAS oo ah economic community aan galnay oo eastiga ahaa kiisa westiga ah baa dhawaaqay waxay yiraahdeen hadda waxay ku dhawaaqeen Nigeria madaxweyne ka inuu dagaal ku qaado Niger waa nin muslina wuxuu weerar ku qaadaya dad muslimiin Afrikaan baa islaynaya yaa la isu laynaya Faransiisku ha gurto resourceska iyo kheyraadka 14 wadankii afaraad oo ka baxa weeyo inqilaab kaga saara waxaa hore isaga xoreeyay Burkina Faso Guinea iyo Mali wadankii afaraad weey saddexdaa wadan dagaalkay la galayaan Niger caalamka oo dhan Afrikaanka oo dhanna waa la safanayaan sidaas ay dagaalka ugu soo qaadeen Westernku waxa la yaab leh Boko Haram iyo kuwa al-Qaacida iyo kuwa argagixisada sida al-shabaab oo kala ah gaalada la jiraan waxa ku cadaanaysa inay foreign project yihiin al-shabaab laga dacmiyo dibadda caalamku keensaday Soomaalida iyo interestigeeda ay cadow ku yihiin Axmed Madoobana waa iyagoo kale waa ninkii ku xigeenka u ahaa ugu sareeyay al-shabaab Axmed Godane ku xigeenkiisii way marka al-shabaab waa wada shaqaysanayaan waxa la go'doominayaa hadda oo la yiraahdo la go'doomiyo oo hala laayo dadka baabuurta ha loo diido oo cuntada ha gali weydo garbahaare ninkii shimbir ahaana xabsi buu ku jiraa meel yara isaga iyo ku wada jiraan hal kursi bay ku wada fadhiyaan isaga iyo xasan garbahaare mawjeeda hal kursi bay ku wada fadhiyaan xafiiskii degmada waxa haysta ciidan ka soo horjeeda shacabka oo dhanna waa ka soo horjeedaan mana u tagi karaan mana agmari karaan odayaasha iyo cuqaasha iyo shacabku ma doonayaan Axmed Madoobe
صدق يا توصل وديجو ذا شقي وليني يبابيني وحيابها اللياب كلا واحد كمدا واحد مشاريع بانو يدين كينينا دقح بيكدقين حق دقح دق بيكدقين ها وإنا سيدك عاطلها ونفط لهين وحا أردي وحبان دقيا ورمها عيل واقو هذا هيستين دوري توصل وقد سويده وحا الله وكد سيا قربها يا سيري كرتا يا خيامين كرتا رجدو مركله وايدين كو علنيا xornimadiinu gacantiina ku jirta madooba oo madax idin noqda walle waa idin dhamaatay waa hoogteen oo waa bacdeen madooba iyo cidii wadata qorxun iyo qiiqiisa waa isla tuuray ku bilaabo horgalada inaad ka saartaan dalka inaad goboladiina ka saartaan horgalada oo aad iska dhicisaan oo aad ka hortimaadaan oo aad iska tuurtaan heeriyayaan la idin saarin xor baad ahaydeen muddaad gobonimo ku nooleydeen yaan la idin adoonsan oo jeeb shakhsi aan la idin adoomin shimbir lacagtu helo maadu wax ka siinaya buula gareed wuxuu gatay oo xoolaha qaatay maadu wax ka siinaya xasan garbaare wuxuu ruqsaday maada la cunaya xukunka ay raadinayaan kuwa iimaanka beelay warqadaha ku qoran barina laga qaadi doono dadkoodana intay gacanta u galiyaan nimankaas hawayda oo yani mooryaanta ah oo al-shabaabka iyo balaayada iswadata yani nasiib darro weeye intaasna kelmadaasan ka oranaya qodobka igu dambeeyo Puntland ninkii daniyaha darbaxa ku dhacday culus waataan idin sheegay mid kala ku soo socota waxa la dhageystay 8 xildhibaan oo gardarrada iyo sharci darrada laga saaray maxkamadda 8daas dadkii dhageystay oo magaranaysa ka qayb galay shirarkaas maxkamadooda ka qayb galay oo dhageystayaasha ah waxay ii soo sheegeen dawladda inay isdifaaci kari weyday maxay isku difaacdaa gardarra looga qaaday dani baa sharcigu ahaa isaga ka saaray kuwaana ku qoray iyo xasan shiraab gaaliya tiimkiis wata Aaranjan la oran jiray Aaranjan Saciid baa madax u ah Aaranjan baa nimanka cunay oo ka saaray mawjeeda 8 ah nin waa dhintay Allah u naxariisto ragii kale intii kale oo noolay kuraastoodii inay dib u helaan baa la rajeynaya nimanka qudaad ah oo odagu u weeyaa waxa leeyahay dhageysta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay al-qudaatu 3 nimanka madaxda ah oo qaadiyada ah nimanka xukunka qaada oo dadka u garnaqa garyaqaanada garsoorayaashu waa 3 2 fi النار و1 في الجنة laba waa ahlu naar odag waa da qabrigiisi mar dhow buu qodan yahay hadii alla idmo inta gaari kartay meesha u socotaa waa godka adaan gaar kula hadlaya dhalinyarada kula shaqeysana waa la hadlaya al-qudaatu 3 qaadi way laba waa ahlu naar midna waa ahlu janno qof xaq gartay oo qofkii gar lahaa iyo qofkii garta darnaa kala gartay isla markaasna ku xukumay xaqii labo qofkaasi waa ahlu janno labada qof ahlu naarka waa mid xaqii gartay oo gartay qofkan inuu qofka ka gar leeyahay isla markaasna u hiiliyay qofkii garta darnaa oo jawr sameeyay kaas waa ahlu naar qof jahli wax ku xukumay oo aan cilmiba aqoon oo loo dirsan oo aan aqoontii xukunka haysan oo lahayn oo garanayn sharciga iyo nidaamka iyo qaanuunka iyo sharciga islaamka aan garanayn oo xaq darro markaa ku xukumay asagoo ahlu naar way hatta haduu asiibo qofkaas ahlu naar way qofku waa inuu limitkiisa yaqaan oo uusan asagoo aan qaadi ahayn hadii qaadi loo magacaabo waa inuu shaqada iska dhufsan oo lacagta fiirine uu yiraahdo waraan shaqada ma qaban karo naarna ma gadanayo naar baad iibsanaysaa midda ugu xun waa kaas xaqa garanaya isla markaasna jawrka ku xukumaya qodobkaas marka maxkamadda waxaan siinayaa talo naartaas iyo jannadaas adigu kala dooro cidna ha u danayn nimankaani sanad iyo barba waa hadda wax u haray waa wax yar waxa u harayba waa wax yar hadday ku noqdaan magdhowgoodii iyo in la siiyo oo yani sharcigu inuu sareeyo oo sharcigu daliil ahayn waxay dan u tahay sharaf u tahay sumcad u tahay Puntland oo dhan waxay muujinaysaa kala madax banaanaan tahay adigii la rabay inay iscadilaan oo is ilaaliyaan marka arintaas waa baraarujinaya waxaan kaloo rabaa inaan update ka siiyo dadka ninkii Saciidaha aragiyay ina waa ku bariyay hadda wuxuu wadaa nimayo 2 sano hal ay siiyo waa idinka tagaya wixii soo dhan waxay ku soo aruureen waxa la yiraahdo muddo kororsi dadka dhalinyarada ah oo xamaasadaysan marka oo qof iyo cod sheekada la yiraahdo ku faraxsan anagoo dhan baa ku faraxsane laakiin waxaan ku kala duwanahay waxbaan fahmaynaa iyaguna waxba fahmi mayaan xamaasad iyo dhalinyaranimo haysa waxay tahay cilada meesha taalla war waxaad ka guurtay oo ahaa 66 oday dooranayo ma aha
meesha u guurtay meel ka fiican maaha